A flea and a fly flew up in a flue. Said the flea, let us fly. Said the fly, let us flee. So they flew through a flaw in the flue. A flea and a fly flew up in a flue. Said the flea, let us fly. Said the fly, let us flee. So they flew through a flaw in the flue. بسم الله. waxaan filayaa yani waxaa loo yaqaanaa waa tank twisters waa carab jalqin carab jalqinta had iyo jeer waa ereyada kuwaasoo maxaa la dhahaa ereyada xoogo isku dhawaaqa ah ama ereyada ka bilaab ba ta camal ka bilawda oo la isku geeyay sidoo kalena maxaa la dhahaa fasiraadna loo heli kara qaarkoodna markaa fasiraad markaa aan loo heli karin so marka waxaan isku dayi doonaa marka maanta waxaan qaadan doonaa waxa loo yaqaan homophone waxaa loo jeedaa ereyada isku dhawaaqa ah macna ahaan iyo spelling markaa kala duwan laakiin spelling marka qaarkood waxaa laga yaabaa isku mid marka inuu yahay sida awgeed waxaa la dhahaa two meaning, two spelling and one pronunciation oo ay ka dhigan tahay maxaa la dhahaa hal dhawaaq ayay wadaagaan one pronunciation oo leeyihiin two meaning yani laba macno kala duwan iyo two spelling ay marka ay leeyihiin so waxaan isku dayi doonaa hadda xoogo marka inaan fasirno marka casharkan yani wuxuu leeyahay homophone-ka yani sawiro ayaa la socdo maadaama sawiro uu la socdo sidoo kale waxaa la socdo videoyaal la socdo macallimiin dhalad ah markaa as online ahaan oo kale YouTube maxaa la dhahaa oo arki doontaan sidoo kale pictures iyo tusaalooyin dhamaantood markaa way la socdaan so marka aan isku dayno markaa kan inaan markaa qaxitaan aan ka bixino inaan fasirno a flea and a fly. Flea waxaa loo yaqaanaa yani duudi ama waxa loo yaqaanaa boodo oo sidoo kale fly waxaa loo jeedaa tixsi sidoo kale flue waxaa loo jeedaa dhuuntan oo hadda jeer yani dhuunta hawada waxyaabo wasaqda marka ka soo baxda so marka a flea and a fly marka boodada iyo tixsi ama boodo iyo tixsi flew up in a flue yani fluega dhaxdiisa ama dhuunta dhaxdeeda ay korkor marka ugu biibeen yani flue yani waxay ka yimaadeen fly ay ka yimaadeen marka fly hadii basta laga dhigo waa flue so marka fly mar waxay noqotaa fal oo ah biibitaan ama haditaan marna waxay noqotaa magac ahna yani tixsi ama toqsis u taqaanid so marka maadaama sada flea marka flea wuxuu dhahay let us fly war aan biiwno sada fly tixsigana wuxuu dhahay let us flee war aan baxsano oo meeshan qatarteena aan ka badbaadno so they flew through yani ayaga waxay ku dhax biibeen a flaw in the flue yani qulqulka fluega dhexdiisa ama dhuunta dhexdeeda ay markaa maxaa la dhahaa qulqulkaas ay markaa ay ku biibeen yani korkor ay markaa ugu soo baxeen so kana marka waxaa loo yaqaanaa homophone flea f l e a iyo flea f l e dhawaaqa waa isku mid flea laakiin spellingka sidoo kale way ku kala duwan yihiin macnahana way ku kala duwan yihiin flue iyo flue dhawaaqooda waa isku mid qoraalkooda saa ujeediin flue dhawaaqooda waa isku mid qoraalka way kala duwan yihiin sidoo kale macnaha marka way kala duwan yihiin kuwaas marka waxaa loo yaqaanaa homophone so marka qaxitaan aan ka bixino what is homophone waa maxay marka homophone waa maxay homophone yani waxaa loo jeedaa words that share the same pronunciation or nearly as another but different in meaning whether they are spelled the same way or not wuxuu dhahay ereyada kuwaasoo wadaaga same pronunciation yani dhawaaq isku mid ayay wadaagaan or nearly as another ama sidoo kale erey kale ayaa yani dhawaaq u dhow ama dhawaaqay markay leeyihiin but different in meaning laakiin macnahaan way kula duwan yihiin whether they are spelled the same way or not haddii yani maxaa la dhahaa si isku mid yani loo isbeelgareeyo loo hingaadiyo ama loo kiciyo ama haddii aan loo kicininba laakiin dhawaaqa isku mid ay yihiin ereyadaas waxaa loo yaqaanaa homophone sida air and air dhawaaqooda isku mid heir ah dhaxle air ahna hawo macnaha way kala duwan yihiin spellingkana ama hingaada qaabka haddaan u kicina way kala duwan yihiin so marka ereyada waxaa loo yaqaana marka homophone so the two words may be spelled the same yani labada erey waxaa laga yaabaa si isku mid marka in loo isbeel gareeyo sajaa sida rose oo ah flower and rose ahna markaa past tense oo wuxuu ka imaaday rise ayuu ka imaaday hadda rose iyo rose qoraalkooda waa isku mid macnaha way ku kala duwan yihiin
dhawaaqana maanta waa isku mid soo maadaama dhawaaq hadda jeer isku mid uu yahay laakiin hadda maxaa lahaa ay isku mid yihiin hingaada yani hadda kan rose waa ubax kanna waa rose wuxuu ka yimaada falka rise oo soo bixitaanka tusaale ahaan the sun rises from east qoraxdu waxay ka soo baxdaa bare soo marka rise haddii baas laga dhigo waa rose soo kanna waa rose oo marka ah ubax soo marka falkan iyo maxaa la magacaan maadaama yani isku dhawaaq ay yihiin sidoo kale maxaa la dhahaa kala macno ay yihiin laakiin maanta qoraalka isku mid ay yihiin sidoo kale qoraalkana way kala duwan yihiin sidaan soo aragnay iyo mid kale aan raacinayno or differently waxaa laga yaabaa si oo maxaa la dhahaa kala duwan in loo isbalgarayne waa laga yaabaa sida carrot and carrot hadda CAROAT iyo CARROT or two and two yani hadda saddexdaan eray iyo labadan eray qoraalkooda isku mid ma ahan rose iyo rose qoraalkooda waa isku mid qoraalka way ka noqon karaan isbeelinka wayna ku kala duwnaan karaan laakiin hadda iyo jeer macnaha way ku kala duwan yihiin dhawaaqana waa isku mid hadda carrot-kan waa halbeeg carrot-kanna waa karootadaad isticmaashid two and two intooda markaa yani waa wax loo yaqaan marka homophones that are spelled the same are also both homographs and homonyms yani homophones kuwaasoo loo isbeelgareeyo si isku mid ah ama isbeelinkooda uu yahay kuwo isku mid ah labadaba waxay yihiin marka homographs iyo sidoo kale homonyms waay labadooda marka oo homographs maxaa loo jeedaa yani graph yani waxaa loo jeedaa writing ama waxaa loo yaqaano sound maxaa la dhahaa waxaa loo yaqaano sax writingkooda markii yani homo ay ka yihiin yani same yani sound ama same writing qoraalkooda same spellingkooda waa isku mid homonymskan waxaa loo jeedaa waa erayada spellingkooda iyo pronunciationkooda isku mid ah homographsna waa erayada kuwaas spellingkooda isku mid uu yahay haddii spellingkooda isku mid uu yahay waxaa loo yaqaanaa homographs haddii spellingkooda waxaa loo kala duwan waxaa loo yaqaanaa heterographs etymology ahaan haddaan u fiirin ereyga asal meesha ka imaada history of a word yani taariikhda ereyga haddaan yani wuxuu ka imaaday yani Greek words ayuu ka imaaday sida homo micnaheeda means uu yahay same wax isku mid ah and von means micnaheeduna tahay voice or sound jawaq ama cod that means they have same pronunciation dhawaaq isku mid ay marka ay leeyihiin ereyadaas marka waxaa loo yaqaanaa homophones hadda waxaan qaadanaynaa homophones oo waxaan arkaynaa ayagoo markaa yani pictures wata iyo sidoo kale macalimad markaa dhalad ah ayadoo oo yani ku dhawaaqaysana marka waan arkaynaa hadda 8 iyo 8 yani dhawaaqooda marka waa isku mid kan oo kale haddaan isbelino ATE iyo kan haddaan isbelgelino EIGHT 8 dhawaaqooda waa isku mid sidoo kale isbelinkooda maanta way kala duwan yihiin sidoo kale macnahoodana marka way kala duwan hadda 8 waxaa loo jeedaa يعني فالك past tense oo wuxuu ka imaada eat yani eat cunitaanka haddii past laga dhigo waa 8 kana 8 waa numberka oo tirada aad u jeedaan soo marka macnaha way kala duwan haddii jumlad aan gelino I ate 2 slices of toast aniga waxaan cunay laba jeex ama laba gabal marka toast ayaan cunay that means toast waxaa loo jeedaa rootiga markii la kululeeyo ayaa toast la dhahaa toasterna yani makiinada lagu kululeeyo oo electronic ku shaqeysa ayaa waxaa loo yaqaanaa toaster haddii kan jumlad aan gelino I work 8 hours a day. I work 8 hours a day. maalinkii aniga waxaan shaqeeyaa 8 saac. haddii maxaa la dhahaa hadda waxaan ogaanay 8 iyo 8 yani dhawaaqa waa isku mid. haddana waxaan arkaynaa macalimadan qaabka markaa. Hey everyone, Jennifer from Carol Speech with your 2 for Tuesday. 2 words with 2 spellings and 2 meanings with only 1 pronunciation. It's a great way to improve your pronunciation with lots of words quickly. Our words today are 8, the past of to eat, and 8, the number. This is a really easy one today. We have lots of letters, but only 2 sounds. Both of these words are pronounced with a long A. And to do that, you can see I'm opening my mouth in a nice wide circle. A. And then I'm moving to a smile. When I open my mouth wide for that first part of the vowel, my tongue is going to be low, the tip of my tongue will be low in my mouth, and the back's going to be pulled up. A.
And then when I move to the smile, my tongue is going to move along with my mouth as it closes, and it's going to be high and flat in my mouth. A. And then simply touch the tip of your tongue to the back of your top front teeth for the T. 8. So 8 and 8. Lots of letters again, just 2 sounds. Ready for your sentence? And haddana sidoo kale waxaan qaadanaa erey kale ah markaa alter alter yacni dhawaaqooda waa isku mid. alder maraykan qaabkaas ugu dhawaaqaa. alter laba syllable ayuu leeyahay, that means laba kala go. So marka meesha albariga lagu sameeyo yani meesha lagu cibaadeysto hadii jeer yani maxaa la alter yani dadka diimaha haysta sida Buddhism-ka, Christianity-ga, waxaa la dhahaa Hinduism-ka, diimahaas kuwa haysta hadii jeer waxaa waa meelaha dad Allahooda sida ayaga aaminsan maxaa la dhahaa ku baryaan ay ku cibaadeystaan yani meesha ay loo yaqaan. ama sidoo kale yani miiska hadii jeer oo maxaa la dhahaa lagu cibaadeysto walow maxaa la dhahaa yani siyaabo kala duwan naftirkooda altar kala raaciyeen. marka qaarkood waxaad arkaysaan George's altar sida su'aal halkan uu qoran yahay, ma marka qaarkood waxaad arkaysaan maxaa la dhahaa witch altar, witch yani sixirada qaabka yani waxa ay isticmaalayso kursiga, home altar yani siyaabo kala duwan marka waad arkaysaa. So marka hadii su'aal aan gelino, and the pastor called those needing prayer to come to kneel at the church altar. wuxuu dhahay pastorka oo loo jeedo yani priestiga oo kale waa shiiq ama baabka wadaadka ayaga aaminsan yihiin. yani wadaadkaas yani wuxuu u sheegay kuwa u baahan ducada in markaa ay ku jilbajibsadaan at the church's altar, yani goobta ama miiska ama meesha lagu cibaado yani kiniisadda meesha oo maxaa la alla lagu bariyo inay fadhiista yani maxaa la had kana u jeedo kale ninkan u fadhiyaa wuxuu aaminsan yahay halkan ayuu wuxuu sameynayaa maxaa la dhahaa aliiso marka uu ku bariyoyaa. sidoo kale altar asana kana wuxuu leeyahay yani waa bedelidda qofka maxaa la waxyaabo fara badan inuu bedelo. I can't alter the plan, aniga marka qorshaha ma bedeli karo. so marka labadooda alter iyo alter isbeelinkooda way kala duwan, dhawaaq waa isku mid, macnaana sidoo kale way kala duwan yihiin. waxaan arkaynaa macalimadda qaabka ugu dhawaaqayso. macalimadana marka waa British, tii horena waxay ahayd yani macalimad marka Mareykan ay ahayd. marka aan isku dayno marka inaan dhageysano. alter labada erey yani qaabka loogu dhawaaqaayo yani waxaan fiilaa marka inaad aragteen. haddana waxaan ku xijinaynaa ereygan ugu dambeeya ahne allowed yani waa isku mid allowed. sidoo kale hadda kan allowed yani waa qaylada ninkan u jeedaan. iyo sidoo kale su'aalada aan gelino, please can you read the poem aloud, yani fadlan yani gabayga si kor leh maxaa la yani mu akhri kartaa. kana allowed yani ogolaanshaha, smoking is not allowed here, yani sigaar cabidda halkan yani looma ogolo. allowed maadaama tusaalooyin aan raacinay haddana waxaan isku dayaynaa macalimadan oo idin marka Britishka ah qaabka ugu dhawaaqayso ereyga allowed. waxaan filayaa marka inaan isla fahanay waxa loo yaqaano homophone. aadna waa u mahadsantihiin. waxaan isku dayi doonaa marka insha Allah ereyo fara badan oo markaa la mid ah markaa inaan yani aan keysano hadduu maxaa la dhahaa eebaraali uu ka noqdo. sidoo kale waxaa isku daydaan